بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ولا لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كينيها آفاق هي حلقة ديسي تضبات ما أنت إن شاء الله تعالى وحن دميسترين سورة المائدة وأن أسبوعي هوري كسو شيكيني هدف كيدا قود هي معنى هذا قود هي مواضيع ده هوس إيمانها هي waxaan la soconnaa quraanka kariimka ah inuu ka hadlo qisooyin inuu ka hadlo caqiido inuu ka hadlo cibaadaad inuu ka hadlo ahkaam iyo tashriicaad iyo qawaaniin dadka muslimiinta ay isku dhaqaan suuratul maa'ida marka waxay ku jirtaa suuradaha quraanka kariimka ah oo nidaamka iyo tashriicaadka iyo ahkaamta aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu faahfaahiyay waxaan sameeynaa insha Allah ta'ala hordhac kadibna saddex xukun oo waaweyn oo suurada ku soo arooray baan insha Allah ta'ala maantay dul istaagna maadaama aad iyo aad ay muhiim u tahay muslimiin ahaan ay muhiim noogu tahay waaqica aan ku noolnahay hadeertaan iyo casriga la joogana ay muhiim u tahay waxaan la soconaa hadda casriga la jooga walaalayaal in aadanuhu uu isdhex galay dowladihii ay xuduudo samaysteen la sameeyay jinsiyad iyo baasaboorro ma aragtay isdhex degay oo laga yaabo in ma aragtay dawlad kasta oo hadda caalamka ah aad ku aragtay dad muslimiin ah iyo dad aan muslimiin ahayn aadanu saa isku dhex galeen muslimiinta waxa lagu qiyaasaa 1 bilyan iyo 600 oo milyan afar meelood meel kamid ah baa waxay yihiin dad aqaliyad ah oo adduunka wadamo kale oo muslimiin aan ahayn ku dhex nool xaaladda labaad oo muhiimka hadda lagu jiro waxa weeye in muslimiinta hadda laga gacan sareeyo oo islaamku uu asagu muslimiintuba ay ahaayeen dadka adduunka gacanta sareeyay oo xadaarada iyo ilbaxnimada iyo aqoonta hogaaminayay kunkii sano la soo dhaafay muddadan dambe islaamkii iyo muslimiintii waa laga gacan sareeyaa ayadana waa waaqi cusub oo dadka muslimiinta ay ku cusub tahay waxaa la soo maray gumaysto iyo ma aragtay dhulalkii muslimiinta gumaystayaal uu qabsaday iyo uu kala jarjaray waxaa ka dhashay runtii nawaasil cusub iyo waxaan hore loo arki jirin suuratul maa'ida marka ahkaam badan bay wadataa runtii oo mujtamacana muhiim u ah dadka muslimiinta ahna ay habboon tahay inay si fiican u diraasayaan si waaqicooda ay wax uga bedelaan hordhaca aan sameynayno saddex qodob baan dul istaagnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama uu ahkaam iyo tashriicaad iyo nidaam suuratul maa'ida uu uga sheekeynayay wuxuu sameeyey hordhac saddex ah oo cajiiba oo fududeynaya in ahkaamta Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo nidaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhulka lagu xukumo hordhaca koowaad waxa weeye cadaaladda iyo qiimaha cadaaladda ay leedahay Allah wuxuu yiri suuratul maa'ida ya ayyuhalladhina aamanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bil qist wa cadaaladda qiimaha ay u leedahay hagaajinta mujtamacaadka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo fulinta ahkaamta Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadaan cadaalad la helin mujtamacaadka cadaalad aysan helin waxa adkaanaysa ahkaamta Ilaahay subhanahu wa ta'ala in la fuliyo tilmaamta labaad ama hordhaca labaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala suuratul maa'ida uu ku soo qaatay markuu la hadlayay yahuuda iyo nasaarada inay bilaadanka iskala weynaadeen ilaa ay yiraahdaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadiisii baan nahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala xigtadiisii baan nahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka uu jeclaa baan nahay anagu dadka waa ka sareynaa marka iskala sareynaa Allah wuxuu yiri asagoo la hadlaya waqalat al-yahud wan-nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'uhu anaga waxaan nahay awlaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo dadka Ilaahay uu jeclaa marka dadka kale lama mid ahan cunsuriyad bay sameeyeen iyo dadka inaysan la sinnayn Allah wuxuu yiri qul waxa tiraahdaa ya rasuul Allah falima yu'adhibukum bidhunubikum muxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin cadaabaya marka dambiga gashaan hadaa tihiin awlaad Ilaahay hadaa tihiin dadka Allah u jeclaa bal iska badaayina sida tihiin antum basharun mimman khalaqa waxa tihiin bil aadanaha kamitihiin aadanaha Allah uu abuurana lamitihiin taa waxaan ka qaadanaynaa qiimaha ay leedahay sinaanta in aadanahu uu siman yahay qoliyo ka sareeya aysan jirin qoliyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadiisa inaysan jirin kuwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala si gooniya uu jecel yahay inaysan jirin كل بلادن كسو ديهين waa basharun mimman khalaq waa bilaadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadku abuuray ka tirsan taas marka waxa waa qiimaha sinaanta ay u leedahay
islaaxinta mujtamacaadka iyo hagaajintooda iyo la dagaalanka musuq maasuqa iyo fasahaadka iyo xukunka ilaahay subxaanahu wa tacaala markii la fulinayo in loo simaya waa tii marka aharka uu ahaa annaasu sawaasiyatun ka asnaani lmishti bilaadanku way siman yihiin sida shanlada afkeeda u simanta oo kale u siman yihiin xukunka ilaahay subxaanahu wa tacaala si siman baa loogu fuliyaa waa tii xadiidka shariifka ahaa nabiga sal alla alay wasalam uu yidhi asagoo la hadlaya usaama ibnu zayd markii la yidhi noo shafeeca qaad atashfacu fii xaddin min xuduud illah xad xuduudka ilaahay ka mida miyaad shafaaco weydiisanaysaa in lagaa qaado markaasuu nabigu wuxuu yidhi sal lla ly slam ummadihii hore waxyaalaha loo halaagay waxaa ka mid ah idaa saraqa fiihim ashariifu tarakuuh haddii nin laandheeraha ama madaxa ama sayid ama nabadoon uu dhalay uu waxado faraha laga qaadi jiray xukunku ilaahay laguma qaadi jirin waidaa saraqa fiihim adaciifu qatacuu yadahu haddii nin tabar yar uu waxadana xukunkii baa lagu qaadi jiray marka qaacidada labaad waxaa weeye si xukunka ilaahay subxaanahu wa tacaala aadanaha ay u fuliyaan dadka muslimiintana mujtamacaadkooda u islaaxiyaan musuq maasuqna ay ula diriraan waa inay yihiin dad siman xukunka ilaahayna u siman waajibaadka ilahi subxana wa tacaala uu soo dirana u siman xuquuqdana ay u wada sameeyeen xuquuqdan in loo sinnaado waajibaadka loo sinnaado takaaliifta iyo tashriicaadkana loo wada sinnaado qaacidada saddexaad si xukunka ilaahi subxaana wa tacaala loo fuliyo waxaa weeye in lala dagaalamo musuq maasuqa iyo fasahaadka iyo corruptionka in mujtamacaadka ay la dagaalamaan culimmada inay la dagaalamaan siyaasiyiinta inay la dagaalamaan madaxda inay la dagaalanto mujtamaca qeybihiisa kala duwan inuu la dagaalamo baa loo baahan yahay si mujtamaca ay u hagaagaan islaax iyo wanaag iyana loo helo xumahana loola dagaalamo allah subxaana wa tacaala marka wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey iyo rasuulkiisow iimaanka dhabtaa laga helayo ilaahay ka baqa wabtaguu ilayhi alwasiilata wajaahiduu fii sabiilihi lacalakum tuflixuun ku dagaalama ilaahay subxaanahu wa tacaala wadadiisa jihaadku runtii waa alfaada tashriicaadka islaamka iyo shacaa'irta islaamka ka mid ah mafhuum khaldanna mararka qaarkood laga qaato si khaldanna dadka u adeegsadaan jihaadku wuxuu ka yimid juhdigana waa tabar inuu qofka bixiyo inuu dadaalo dhidido si uu arrin u fuliyo jihaad juhdi bay ka timid jihaadku marka waxaa weeye badlu nafsi qofka inuu naftiisa ku bixiyo ama xoolihiisa ku bixiyo ama aqoontiisa ku bixiyo ama dadaalkiisa uu ku bixiyo sida kelmada ilaahi subxaana wa tacaala loo saramarin lahaa waxaa marka lagu dadaalaya aqoonta waxaa lagu dadaalaya dadka masaakiinta in wax la taro waxaa lagu dadaalaya in maaragtay teknolojiyada la barto waxaa lagu dadaalaya dacwada ilaahay in la fidiyo qur-aanka kariimkaas ilahi subxana wa tacaala uu yihi wajaahiduhum bihi jihaadan kabiira gaaladan iyo mushrikiinta qur-aanka kariimka kula dagaalan yaa rasuul allah waxaan soo sheegnay marka xalaqadii labaad barnaamijkan aafaaq markaan kasoo sheekeynayna soo sheegnay nidaamka islaamka uu u dejiyey dagaalka iyo silmiga iyo nabadda waxaana soo sheegnay inuu yahay nidaamka islaamka uu u dejiyey nidaam dhammaystiran oo mutakaamil ah waxaan soo sheegnay qur-aanka kariimka guud ahaantiisaba inuu yahay wuxda ama system isku xiran waxaa laga yaabaa hal mowduuc inuu ilahi subxana wa tacaala uga hadlo suurat lbaqara uga hadlo suuratu alcimraan uga hadlo suurad kale uga hadlo suurad kale sida jihaadka oo kaleba allah wuxuu uga hadlay suurat lbaqara wuxuu uga hadlay suurat nisa waxaa looga sheekeeyey suuratu aal cimraan waxaa looga sheekeeyey suurat lmaa-ida waxaa looga sheekeeyey suurat lxaji suurat tawba suurat lanfaal intaadaasoo dhan waa hal mowduuc oo isku xiran waa nidaam mutakaamil oo dhammaystiran waxaa loo baahaya nidaamka in laisku keeno la qodobeeyo qofka uusan hal ayadoo ku jirta suurad uusan iska qaadan oo kula boodin taas waxay keenaysaa halaag badan iyo dadka muslimiinta inuu dhaawac badan soo gaaro marka waxaan soo sheegnay asbaabaha dagaalka islaamku uu u baneeyey ah qofka inuu isdifaaco oo iska difaaco xoolihiisa ama uu difaacdo dhulkiisa in maaragta dadka masaakiinta la difaaco dacwada ilaahay dadka in la gaarsiiyo in la difaaco taa waxaan kusii ifteymin lahaa jihaadku wuxuu ka mid yahay axkaamta loo yaqaano axkaam asultaaniya axkaam asultaaniya yacni waa axkaam dowladda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faray looma dirin afraadu nnaasi ama caamatu nnaasi shuqulkuma leh dowladdaa la rabaa inay ay xaaladda la taagan yahay diraasayso wadciga la taagan yahay ay diraasayso qawaacidda islaamka ay u dejisay dagaalka iyo nabadda iyo silmiga ay soo qaadato masaalixda iyo mafaasidda ay eegto maxaasinta mursalka ay eegto kadib warshaad camala iyo workshopya loo sameeyo
istaadhiyo laga sameeyo waaqica markaa la joogana lagu dabaqo axkaamta noocana waxay u baahan tahay runtii fiqhul waaqic wax loo yaqaan wax qurux badan anigu uma arko qof wadaada ama qof sheekha oo adduunka daafiisa meel ka jooga in uu inta axkaamtii maaragtay jihaadka iyo uu taqriiriyo kadibna waaqica Soomaaliya oo kale uu ku rido asagoo runtii aanan daraaseynin waaqica siyaasadeed ee lagu jiro waaqica nabadeed ee lagu jiro waaqica dhaqaaleed ee mujtamaca Soomaaliyeed uu ku jiro waaqica maxaa la yiraahdaa duruufta la taagan yahay asagoo aanan daraaseynin oo aan arrinka la rogin caalamka sidoo hadda uu nool yahay tabarta aad leedahay adigoo aad intaas oo rogo runtii in aad nusuustii kali intaad akhrisid aad waaqic Soomaaliya la ku tabaqdid runtii waa wax laga haboon yahay dhaawac badan iyo dhibaato badan way gaarsiinaysaa halaag badan ummadda way u soo jeedaysaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka saddexdaas qodob oo kaga hadla suuratul maa'ida buu wuxuu u sameeyay hordhac axkaamta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu u soo dejiyay aadanaha inay isku dhaqaan axkaamta Ilaahay uu soo dejiyay iyo shariicada waxa loo yaqaan zawaajir ama mawaanic waxay diidaa oo hor istaagtaa in musuqmaasuq uu dhaco in dhibaato ay dhacdo in aadanaha dhexdiisa uu isdulmiyo inuu fasahaad uu dhaco in bay hor istaagaysaa tashriicaadka markii Ilaahay subhanahu wa ta'ala saddex darajo bay shariicada islaamka marsiisay saddex darajo ama saddex mustawayaat mustawaha koowaad waxa loo yaqaan alwazi'u ad-damiri qofka bilaadanka inuu asaga iska ilaaliyo xumaha damiirkiisa inuusan siinin inuu dhibaatadan sameeyo waazic waxa weeye waxa ku celinaya inaad dhibaatadan samaysid waxaad aragtay lacag meel taala tusaale ahaan $100 baa meel yaala kaliya baa tahay kamera kuma jeedo bilaadanna kuma jeedo yaa ka celinaya $100 inaad qaadatid waazica koowaad iyo waxa koowaad ku diidaya waa inuu yahay damiirkaaga bilaadantinimadaada muslimnimadaada cabsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad ka cabsanaysid kaasa waxa la yiraahdaa waazic damiir ama waazic nafsi qofku inuu asaga isxakameyn karo $100 wuu qaaday wuxuu geeyay ama masaajid ama dukaan ama dawladdu ku wareeji ama qofkii lahaa buu la raadiyay intuu jabka gashtay muusan cunin waxa la yiraahdaa waazic waxa la mid ah dhalo biibsi ah ama koob shaahad cabtay ama caagad biyaha baad cabtay marka dhamaysatay wada maraysa kaliya baad taagan ma ku tuuraysaa meesha mise waxa la raadsanaysaa meesha qashinka lagu tuuri lahaa haddii qofka bilaadanka marka uusan lahayn waazica naftiisa ah ama damiirkiisa uusan gaarsiisnayn iyo dhaqankiisa inuusan wadada ku dhex tuurin qashinkii uu cunay ama cabitaankii uu cunay ama uusan ku taarin meel wuxuu la raadsanaya qashinka loogu talagalay in lagu tuuro kaasa marka wuxuu yahay waazica nafsiga ah oo islaamku uu tarbiyeeyo aadanaha inay heerkaas gaaraan islaamka waxa loo soo dejiyay in aadanaha goonidiisa uu xumaha iskaga ilaaliyo dhibaatada iskaga ilaaliyo uusan qof kale ka baqin uusan ka baqin dawlad uusan ka baqin mujtamaca uusan ka baqin in la ceebeeyo ama uusan ka baqin in maarto wax laga sheego wuxuu ka xishoonayaa naftiisa baana waxaysan siin karin inuu dhibaatadan sameeyo marka bilaadanka wax iskugu jiraan kuwa markii xumaha ay arkaan qiimaha naftooda xushmeeya oo naftooda ixtiraama oo aan dhibaatadii sameeynin kuwa aayada quraanka ah iyo shariicada islaamka ah iyo nusuusta quraanka bay qabanaya kuwana waxa qabanaya ciqaabta oo dawladda ay kugu fulinayso marka waxa laga yaabaa sida aan soo sheegnay in aad adoo wada maraya aad biyo wadatid qof baa wuxuu ixtiraamaya naftiisa qashinkii ma ku tuuraya meesha qofna wuxuu soo xasuusanaya imaadatul adaa can at-tariiq sadaqa oo ka maartay gaabsanaya xumi qofna wuxuu arkaya haduu meesha ku tuuro in la saaray maartay gharamaad iyo lacag iyo tigid baa la saaraya ma ku degdegaya marka tigidkaas uu ka baqaya laakiin naftiisa ma xushmeena saddexdaas heer buu jira marka waazica koowaad waxa la yiraahdaa waazic damiiri mid kale waxa la yiraahdaa waazic diini nusuusta quraanka kariimka baa ku qabanaysa midka saddexaad waxa la yiraahdaa waazic sultaani dawladda iyo ahkaamteeda iyo sharcigiiba ku qabanaya dawladda hadaa xumaan sameeysid naftaada aadan ka xishoonin aayada quraanka aadan xushmeenin suldaanka ku qabanaya ama dawladda ku qabanaysa shariicada saddexdaas mustawayaad way martaa runtii waana wax aad u qurux badan waagi hore waxaan sheegnay aadanuhu
in laba gabdhood oo walaalo ah ay wada guursan jireen, laba gabdhood oo walaalo ah bay guursan jireen, ama waxaa dhici kartay 10 nin inay hal gabdhood isla guursadaan. islaamku wuu manciyey. Allah wuxuu yiri wa anta jama'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf, wa xaraan ina laba gabdhood oo walaalo isla guursatid. xukun baa lagu soo dejiyay diin ah. xukunkii markay dadka ay la qabsadeen hadda waxay u noqoto damiirkoodii iyo caadi u noqoto dhaqan, asagoo aan qofka xataa aayad quraan ah aanan garanaynin ama xukunka Ilaahay uu soo dejiyay uusan garanaynin, ba bulshadii dhaqan ahaan iyo culture ahaan waxay aamintay laba gabdhood oo walaalo ah in la wada guursan karin, 10 nin inaysan hal gabar wada guursan karin, inuusan qofkan guursan karin aabihiis xaasay kala tageen. kulli waxay noqotay wax dhaqanka bilaadanka hadda kamid ah, aayad quraan iyo xadiis iyo nusuus in loo raadiyo uma baahna. marka waxa qabanaya bilaadanka waasicooda damiirka ah. hadii marka ay taas qaban weydo qofkii uu xumaha u soo bareero, shuruucdii iyo nusuustii quraanka kariimka baa taal waa lagu akhrinaya. hadduu u soo bareero ciqaab baa ka ratimaysa. ciqaabta marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dajiyay waa 3 nooc: xuduud iyo qisaas iyo tacziir. waxaan ka soo sheekeynay si ahkaamta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala loo fuliyo, si mujtamaca loo hagaajiyo, si musuqmaasuqa loola dagaalamo, in cadaalad la helo, in sinaan la helo, in ahkaamta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadku dhan ay wada fuliyaan oo lagu dadaalo si ahkaamta Ilaahay ay u fusho. ahkaamta Ilaahay marka subxaanahu wa ta'ala waxaan niri waa xuduud iyo qisaas iyo tacziiraat. xuduudu waa ciqaab markii la tacriifinkeeda ama waxa lagu qeexaa xuduuda Ilaahay inay tahay ciqaab Allah subxaanahu wa ta'ala uu qadaray oo qiyaasteeda la sheegay quraanka kariimka ama sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam, waana xaq Ilaahay uu leeyahay. qisaastuna waxa weeye ciqaab Allah subxaanahu wa ta'ala uu qadaray aadanahana xaqaas uu leeyahay. tacziirkuna waxa weeye ciqaab islaamku ama tashriica islaamka uusan qadarin, xukun gooni ah aan loo sheegin ama ciqaab lisla yaqaan aan loo sheegin. saddexaas weeye ahkaamta. xuduuda iyo marka qisaasku labadoodaba waa ciqaab la yaqaan, laakiin midna waxa weeye Ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala xaqan iska leh, midna bil aadanka iska leh. haddii xaqan uu Ilaahay leeyahay xuduud baa la dhahaa, haddii xaqa uu aadanaha leeyahay qisaas baa la dhahaa. ahkaam mufassal ah baa fiqiga iyo laga helaa iyo maaragtay kutubta fiqiga iyo musanafaadka, halkaas insha Allah ta'ala ha loola noqdo. laakiin muhiimadeena waxa tahay inaan ogaano ahkaamta guud oo islaamka ah waa xuduud iyo qisaas iyo tacziir. tacziirku marka waxa weeye waa dhibaato cuquubo ka ratimaysa, laakiin cuquubadeeda aan la xadin. waxaa loo daayay dowladda islaamka ah inay markaa masaalixda iyo mafaasidda isku eegto, ciqaab u qalantana la gaarsiiyo. xuduudu marka waa 7. xuduud waa 7: waa xatooyada, waa zinada, waa khamrado la cabo, waa diintoo laga baxo, waa qadfiga oo qofka aad cirdigiisa aad dhaawacdid, waliba zina aad ku dhaawacdid, baqyiga iyo xiraabada. 7daas waxa la yiraahdaa xuduuda. culimada iyo madaahibta afarta ah way kala duwan yihiin oo kuwa waxay gelinayaan inta kamid ah tacziiraadka, kuwana waxay gelinayaan xuduuda, kuwa culimadu waxay leeyihiin sariqada iyo zinada iyo qadfiga. saddexdoodaas ba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanku ku cadeeyay binnas ahkaamtooda. xatooyada kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala suuratul maa'ida wuxuu yiri was-saariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. zinada oo kale az-zani waz-zaniyatu fajlidu kull wahidin minhuma 100 jalda. qadfiga oo qofka aad ku tiraadid maaratay wuu zinaysto iyo ku tiraadid, Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri fajliduhum 80 jalda, 80 jeedal halala dhaco. saddexdaas xad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala si sariix ah oo nas ah buu quraanka ugu sheegay. khamrada oo kale waa xad xuduud Ilaahay kamid ah, laakiin si toos ah nas ah quraanka kariimka ugu jiro inta la jaldinayo. bal saxaabada xataa iyo fuqahadii kuwa waxay leeyihiin 80 jeedal, kuwa waxay leeyihiin 40 jeedal. waxaana u daliil xadiidkii Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu uu yiri xad aan oofiyay oo hadii ay ka timaado dhibaato ay ka timaado aan diya ka bixiyo ma jiro aanan ahayn khamrada, laana nabiga sallallahu alayhi wasallam ciqaab rasmi ah noogama uusan tagin buu yiri Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. marka hadii la isku soo koobo 7daas way xuduuda, waa xatooyada iyo zinada iyo khamrada,
diintoo laga baxo qadfiga iyo baqiga iyo xiraabada. waxaa jira dhibaatooyin iyo maaragtay uusan quraanka kariimka ah iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam uusan ciqaab rasmi ah u dajin, laakiin kuwa lamid ah quraanka uu ku jiraan. مثلا قاطع طريق oo kale qof baad wadada u gala waa burcad dadkii buu dhacaya xoolahoodii wuuna dilaya wuuna cabsi gelinaya. qofka marka ma la dhihi karaa xaddu sariqan ku qaadana oo gacantan goonina, wuxuu ku sii darsaday tarwiicu naas iyo takhwiifu naas, dadka in la cabsi geliyo ku darsaday. maxaa qofkaas oo kale laga sameeyay wax hada ma leeyahay qaaticu طريق waxa ku yimid ikhtisaabka ama kufsiga. qofkii zino sameeyay oo kufsigu waa zino, wuxuu sii dheer yahay inuu qof aanan raali ka ahayn uu maartay uu xoogay uu jir dilay nafsiyan iyo jirkeedii iyo gabadhina uu maartay xumeeyay oo kufsi buu qofka sameeyay. waxa laga yaabaa kufsigaas hataa inuu dil ku sii darsamo, dhici kartaa. sida hadda maalmaha dambe wadankeena ku soo badatay runtii oo ay kamid ahayd gabadhii yareed oo hadda ugu dambeysay Caaisha yariisay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigeeda ha dhaafo, Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada ha geeyo, Ilaahay subhanahu wa ta'ala shahiidada ha ka dhigo, faamilkeedii iyo reerkeedii iyo mujtamaca muslimiinta soo dhayin Ilaahay subhanahu wa ta'ala sabr iyo iimaan uu ka siiyo. waa la kufsaday waana la dilay ayada waliba gabar yar. kufsigaas oo kale dadkii sameeya ma waxa la leeyahay zinadii xadkeedii baa laga qaadaya? waa maya. qofkii marka wuxuu u baahan yahay dambi iyo ciqaab ka weyn ciqaabtii zinada ahayd. waxaa la mid ah rashwada ama waxa loo yaqaan laaluush, qofka inuu gato maaragtay dimadii bil aadanka. waxaa la mid ah isdiraa'ul adyaanka, in uu qofka diimihii been ka sheego oo maaragtay diintii uu maaragtay ceebeeyo ama mahdi baan ahay uu yiraahdo ama maxaa la yiraahdaa uu diintii dhibaato soo gaarsiiyo. isdiraa'ul adyaan wax qaanuuna ama ciqaab u degan ma jirto. arimahaas oo kale marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku nadaamiyay aayadan loo yaqaan aayatul haraba ama aayatul haraba min al-harb bika soo jeeda. inma jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan, kuwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala la dagaalamaya oo rasuulkiisa la dagaalamaya oo dhulka fasahaadinaya jazahooda muxuu yahay? an yuqattalu illa dilo aw yusallabu ama illa salbiyo أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قعنتان يبيحدان أو إصداف أمل لبدان لقويه أو ينفوا من الأرض أما نلك لقيريه. عقابة النوع عسى مركة وعقاب إلهي سبحانه وتعالى ودايي دولة يقضاء محكمة ده أيها اللو باهي هي إن القرآن كجاران وحي مركز مناسب وهنا أي مريان وحسوس قال مركز قطاع طرق برعتك برعت بضيتك isdiraa'ul adyaanka kufsiga baa soo hosgalaya. arrimaha marka noocaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u sameeyay in fasahaadka lagula diriro, corruptionka in lagula diriro, musuqmaasuqa in lagula diriro ba ahkaamtaan loo dejiyo. musuqmaasuqa marka wuxuu galaa diinta, wuxuu galaa siyaasadda, wuxuu galaa maamulka, wuxuu galaa dhaqaalaha, wuxuu galaa dhaqanka iyo culture-ka. waxaana ugu daran musuqmaasuqa markuu galo qaab fakarka aadanaha iyo culture-kiisa iyo thaqaafadiisa iyo wacyigiisa markuu galo. musuqmaasuqa markuu wacyigaaga la mid noqdo. waxaa ka sii daran markii musuqmaasuqii magacyo loo bixiyo fiican. waxaa dhici karta qofkii baarlamaanka ahaa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xildhibaanka uu ku aaminsaday inuu codkiisa qofkii munaasibka ahaa uu siiyo, inuu ku yiraahdo maaragtay wax isii madaxweynihii dadkii tartamayay uu kana ka qaato 10,000 kana ka qaato 20,000 oo codkiiba uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku aaminsaday mas'uuliyadkiiba uu hodhow lacagtaas in loo bixiyo karaamo ama in loo bixiyo maxay waxa la dhihi jiray sooriyo. waa markii culture-ka ay gasho dhaqanka uu galo waliba magacyo qurqurux badan loo bixiyo. waa markii fasahaadka uu halaaga uu marayo runtii. waxaa ka sii daran markii diinta uu galo musuqmaasuqa. waxbarashada markuu galaa runtii ka sii daran. waxbarashada yani sida scholarship-yada oo kale, yani 40 arday baa dugsi sare ka wada baxday oo kale, 10 dugsi sare ah oo waxa la helay scholarship oo caalamka islaamiga baa la helay. sida loo kala bixinayo iyo qofka la siinayo haddii halka uu musuqmaasuqa naga galo, galaaska sida ardada loo fadhiisinayo uu naga galo,
waxbarashadii uu ku dhex faafo, diintii uu ku dhex faafo, masaajidadii uu galo, runtii ummadaha noocaas runtii waa loo baqaa. waxaa loo baahan yahay runtii mujtamaca siiba dadkeena Soomaalida ah in ay la dagaalamaan musuqmaasuqa, la dagaalamaan maaragtay fasahaadka, in la sameeyo hay-adii loo yaqaano anti corruption, dowladda federaalka ay sameyso, dowlad goboleedyada ay sameeyaan, lagu soo daro dastuurka dowladda ah si musuqmaasuqa loola dagaalamo, mujtamacana uu ahaado mujtamac muslax ah, hagaagsan oo wanaagsan, axkaamta ilaahina subxaanahu wa tacaala lagu dhaqay. qadiyada labaad oo aan insha allahu tacaala kusoo gunaanadeeno xalaqadeena maanta waa qadiyada loo yaqaano alxaakimiya. alxaakimiya waxay kasoo jeedaa xukunka. markuu ilaahi subxaanahu wa tacaala uu kasoo hadlay hordhacii suuratu lmaa-ida, uu kasoo sheekeeyey axkaamta ilaahi subxaanahu wa tacaala in la fuliyo laisku dhaqo, alla waatuu yidhi faxkum baynahum bima anzala allah. nabi maxamedow ku xukun mujtamaca waxa alla subxaanahu wa tacaala uu kugu soo dejiyey. آياتك الله سبحانه وتعالى إسلا سورة المائدة وحير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آيات إهد أفحكم الجاهلية يبغون، يعني وحلو بهي أحكام الله سبحانه وتعالى هذا صوت شيء سوسر دي ودلكي وسرقة وزنا ومسوق ماسقي وكفسقي ورشوة arrimahaas oo dhan oo la soo sheegay axkaamta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dejiyay waa in la fuliyaa. dadkaanan fulinin ka waran, alla wuxuu yidhi waman lam yaxkum bima anzala fa ulaa'ika humul kaafiruun. culimmadii iyo saxaabadeenii iyo salafkii hore iyo mufasiriintii waxay isku khilaafeen kufrigaas wuxuu yahay. qofka shareecada islaamka aanan fulin sideeta aanan u fulin magaal oo diinta uu ka baxayaa. cabdullahi ibni cabaas iyo saxaabada la midkeeda iyo saciid ibnu jubayr iyo waxay ku tageen inay tahay kufrun duuna kufrin. gaalnimadii weyneed maahane waa gaalnimo, yani macsi ilaahay subxaanahu wa tacaala buu qofka ku dhacay. fisqi buu ku dhacay laakiin fisqigii diinta looga baxayay maaha. dulmi buu ka dhacay laakiin dulmigii diinta looga baxayay ma ahan. waa kufri diinta aan looga baxayn, kufrun duuna kufrin. culimo kale waxay ku tageen mufasiriinta waaweynka ah inuu yahay qofka gaaloobaya qofkii juxuud u sameeya iyo diidmo. qofka markii la dhaho xukunka ilaahay waa kan, shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa tan. qofka markuu qof wax dilo waa in loo dilaa. qofka hadduu dembigaa sameeyo xukunkaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala soo jeediyo. qofkii dhaha anu waxaas ma aaminsani, ama qofkii yidhahda waxaan waa casri hore hadda waa laga tagayo casrigan casri macquula maahan, ama qofkii jaxdi caadiya sameeya, qofkaa laa shaka waxa weye diintu uga baxaya. laakiin qofkii ka gaabiyo ama taqsiir sameeya oo ka gaabiya, qofkaas gaalnimo ma uusan ku dhicin, laakiin waa qof macsi la yimid weeye. runtii sida saxda ah oo saxda u dhow anigana aan runtii aan aaminsanahay waa midaas. qofkii tashriicaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo shareecada islaamka ah juxdiya ama inkira ama diida, qofkaas dee si toos uhu banaanka wuxuu uga aaday shareecada islaamka iyo diinta islaamka ahba. qofkii ka gaabiya ka waran, qofkaas waa qof macsi ku jira, waxaana loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan inuu uga baxo shareecada islaamkana uu fuliyo. ummadaha islaamka ah ilaa xilligii nabiga sal allahu alay wasalam iyo saxaabadii iyo khulafadii ka dambeysay amawiyiintii, cabaasiyiintii, cuthmaaniyiintii ilaa yowmina haada marba heer bay maraysay. mar ay shareecada islaamka si fiican u wada fulinaysay, mar ay dhexdhexaadeed, mar ay ka jajabneed, mar ay maaragtay laga gacan sarreeyay, mar ay gacan sarreysay. markii laga yimaado xilligii nabiga sal allahu alay wasalam, xilligii khulafaa ur-raashidiin, waxaa laga yaabaa ummadda islaamka inaysan marnaba gaarin meeshii ugu sarreysay aysan ka gaarin. mar walba ummadda gaabis wuu ku jiraa. ma waxa marka aan leenahay kulligood waa wada gaalo, kuwa hadda joogana waa gaalo maadaama aysan shareecada islaamka isku xukumin. aabayaashan iyo kuwii naga sii horreeyay ilaa inta laga gaarayo saxaabada cahdi, ma waxa le waa wada gaaloobeen? waa maya. waxa la dhihi karaa ma ahan, waxaana ay noqonaysaa fidno weyn oo ummadda soo dhex gashay. arrintaa marka xaakimiyada ah runtii waxay noqotay nadariyad ama aragti marka dambe loo bixiyay alxaakimiya, يعني التحاكم إلى شرع الله. إله سبحانه وتعالى شرعي إن حكم لقد دكتور واللفظ الصحة هذا الصحة ويه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه مركي لو أدك سنة وحو يري وكلمة حق يراد بها باطل، وكلمة حقه لكن ضن أنا صح هين لقل لي باطل لقل لي. نظرية دا مركي وحي بلامتي حلقي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخليفة المسلمين ها وعيدا كي معاوية رضي الله عنه أي دقالمين دقال كي لو يقن الصفين
saxaabadii oo laba ciidan oo culus kala ah ciidanna waa cali bin abi aalib radiyallahu anhu hogaaminayo ciidanna mucaawiya radiyallahu anhu hogaaminayo ba iskaga hor yimid dagaalkaas Sifiin markuu dagaalka muddo socday ba ciidankii mucaawiya radiyallahu anhu waxay kor u taageen calamo cad iyo quraankii kariimka ahaa bay saa u taageen oo macnaheedu uu yahay waxaan diyaar u nahay in kitaabka quraanka kariimka uu kala xukumo yani dagaalka aan joojino quraanka kariimka hana kala xukumo ciidankii cali bin abi aalib radiyallahu anhu baa tashaday war arinta nimanka ay sameeyeen ee calanka ay kor u taageen madaacad bay ka tahay ma khiyaanay ka tahay oo markii aan istaagnay in dhabar jabin doonaan culimada mu'arrikhita waxay yiraahdeen markaas cali bin abi aalib radiyallahu anhu ciidankiisa waa xoog sareeyay marka kuwa ka mid ah ciidankaas oo markii dambe khawaarij noqday waxay yiraahdeen waxa la yiraahdo maaragtay taxaakum iyo xukun ma sameeyeen cali bin abi aalib marka go'aankii wuu qaatay dagaalkii waa la joojiyay mucaawiya radiyallahu anhu wuxuu soo saaray amr ibn al-aas saxaabiga la oran jiray radiyallahu anhu cali bin abi aalibna wuxuu soo dirsaday saxaabi la oran jiray abu muusa al-ash'ari inay labadoodaas kala matalaan labada ciidan wax isku waafaqaan la qaato ciidanka marka cali bin abi aalib dad kamid ah baarintii raali ka noqon waayay oo waxay yiraahdeen caliyow xukunkii ilaahay baa dad u dhiibtay waxa idinkana kala xukuma xukunkii ilaahay uu lahaa baa dad tirina kala xukuma cali bin abi aalib marka wuxuu yiri war quraanka kariimka ah ilaahay subhanahu wa ta'ala hadalkiisii weeye wuu aamusan yahay kitaabkaas ku dhex jira yaa dadkii ku tabaqaya yaa mujtamaci ku tabaqaya yaa xukunkiisa la soo baxaya soo bil aadan ma aha inaad tiraahdo quraankan qaadanayna quraanka kariimka ah oo qof uusan wixii xukumin hadee nooc kamid waxay noqonaysaa waalid ah quraanka ma asaga is xukumaya ma asaga quraanka waaqica ku xukumaya soo in la helo maahan qaadi iyo judge iyo maxkamad wixii xukunta arinta marka nimankii way qaadan kar waayeen waa tuu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu la dooday uu ku yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu xukum galiyay bil aadanka markii ninka iyo xaaskiisa isqabtaan alla wuxuu yiri fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha qof ka socda ninka dhinaciisa iyo gabadha dhinaceeda qof ka socda keena labadoodaas ha wada hadlaan xukun hasla gaaraan markii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri ugaarta uu ka hadlayay iyo waqtiga xajka la joogo iyo xaramka inaanan la ugaaran karin qofkii marka ugaar ku sameeyay ka waran alla wuxuu yiri laba qof oo idinkeedii kamid ah soo saara dawi cadl minkum ayaga xukun ha ka gaaraan hadiiba ilaahay subhanahu wa ta'ala arimaha sida basiidka oo bulshada dhexdeeda uu dadka uu yiraah xukumaan dhiiga mujtamaca muslimiinta in dad loo saaro miyaa marka waxay noqonaysaa xaaraan kuwa badan oo kamid ah arintii ku qancay oo ka soo noqday khawaarijti kuwana way ku tageen oo cali bin abi aalib bay gaal ku xukumeen saxaabadii dhan bay gaal ku xukumeen markii dambana ayaga dilay cali bin abi aalib radiyallahu anhu arintaas waagaas soo bilaamatay al-haakimiyya muddo dhexe way iska aamustay waqti dambe oo hadda qarnigeenan hadda oo labaatanaad la soo dhaafay baa waxa soo nooleysiiyay nin la yiraahdo Abu al-A'la al-Madudi nin wuxuu ahaa Pakistani oo sheekh oo culimo ah oo runtii fuqaada kamid ah kana mid ah dadkii Madiina al-Munawwara jaamaca al-Islaamiyya wax ka asaasay kana mid ah Abu al-A'la al-Madudi dadkii muslimiinta ah oo xorriyadii Pakistan xorriyadii qaadatay qaybta weynka ka ahaa marka Abu al-A'la al-Madudi wuxuu noolaa xilligii gumaystayaasha gumaysanayeen dhulka muslimiinta ah Hindiya waliba ku dhex jiray oo Ingiriis u soo gumaystay waa Hindus weeye iyo Buudhiyiin dadka muslimiinta bay gumaadeen asaga iyo sheekh loo yaqaan Maxamed Iqbaal oo shaacirka weena ahaa iyo waxay asaaseen xaraka loo yaqaan xaraka al-Islaamiyya oo ka shaqeysay inay dadka muslimiinta tawciyeyso markii dambana inay dawladda Pakistan ay xorriyad qaadatay qayb weyn ka ahaa asaga marka wuxuu taasiiliyay mas'alada loo yaqaan al-haakimiyya soo nooleysiyay kitaab uu ka qoray loo yaqaan al-mustalahat al-arba'a marka wuxuu simay al-haakimiyya iyo tawxiidka rububiyyada iyo tawxiidka uluuhiyada iyo simay iyo cibaadada ilaa heer markii dambe la gaarsiiyay al-haakimiyya inay kamid tahay tawxiidka afar looga dhigo tawxiid al-uluuhiyya tawxiid ar-rububiyya iyo tawxiid al-asma iyo al-haakimiyya culimadeena weyn ay diidayaan arintaas in halka la gaarsiiyo mas'alada marka waxay dhashay inuu asaga uu taasiili bilaabay imaamkeeni kale oo ahaa Sayyid Qutb ilaaha u naxariisto asagana shahiidka ahaa masaariga ahaa inuu asagana nadariyada ama aragtida si dhameystiray kutuba ka qoray wali waxa ugu caansan kitaabkiisa loo yaqaan Macaalim fi at-Tariiq uu ka qoray xaakimiyada iyo kitaabka tafsiirka fi dhilaal al-Qur'an wali qofkii u baahdo wuxuu muraajaceyn karaa aayaadkan suuratul Maa'ida
iyo aayadaha ugu horeeya suuratul ancaam markuu u sameynaya suuratul ancaam hordhaca ama tarjamada caamka u sameynayay qoraal nafiisa uu ku neefta ku dheeraystay buu kaga hadla runtii alxaakimiya. arrintaa marka waxaa weeye aragtida ah dadka haddii shariicada islaamka ay 100% wada fulin waayaan ay sidee tahay u fulin waayaan inay yihiin dad gaalo ah shariicadana ay ka baxayaan ama ay yihiin dad jaahiliye ah oo xilligii jaahiliga oo kale inay nool yihiin. arrintaa runtii waa arrin khatiira in mujtamacaadka muslimiinta la yidhahdo waa gaalo, xukaamta la yidhahdo waa gaalo, waxay keenaysaa arrin aan laga soo waaqsan karin oo halaag aad u tiro badana. runtii arrinta noocaas marka labadaas sheekh oo waaweynka ah ninna wuxuu ku noolaa duruuftii Hindiya iyo gumaystihii heystay iyo Bakistaan iyo xorriyadeedii, ninna wuxuu ku noolaa duruuftii Masar soo martay waagii Jamaal Cabdinaasir oo dadka akhwaan muslimiinka intuu xirxiray cadaabay oo dhibaateeyay u jir dilay bay ka dhalatay. duruuf marka waxa way dhibaato ah baa waxay keentay oo dadkan ma aragtay muslimiinta sheeganaya oo saan noo laayay oo saan noo jir dilay oo nagu haysta laa ilaaha illa allah dad ma aragtay muslimiina ma shacabka ku daawanaya iyo culimada ku daawanayana dad muslimiina ma. arrinta marka waxaa sii dhiriyay xarakaad badan baa ka dhashay oo hadda caalamul islaami iyo caalamka waa macruufka ah. mujtamacaad sida hadda Soomaaliya oo kale taaba runtii hadda waxaa ka taagan dad dhahaya mujtamaca muslimiin ma ahan waa gaalo dhahaya kuwa ku noolba cahdigii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo joogo oo xilligii ma aragtay makal oo kala kuba noolba arkaysa oo dhahaya xilligii islaamka wuxuu joogaa ma aragtay aan laba hijrooninba inaan dadka muslimiinta aysan kala guursan cunto aysan kala cunin aysan isku ma aragtay gargaarin isku meel aan lagu aasin. runtii mushkilada waa mushkilo weyn. shariicada islaamka waa waajib in la qaato lagu dhaqmo la tadbiiqiyo laakiin qof kasta wuxuu ka tadbiiqinayaa inta asaga awoodiisa ay gaarsiisan tahay. fattaqullaha mastata'tum laa yukallifu Allahu nafsan illaa wus'aha. ummadda islaamka waxay mar walba faran yihiin in shariicada islaamka inta awoodooda ay fuliyaan. hadday awoodi kari waayaan ka war ma waxaan leenahay waa gaalo lama dhahayo si hadda u dhan yihiin dadka Soomaalida ah oo muslimiinta ah ka tiraahidba ma aragtay maxaad samaysaa wuxuu ku leeyahay ilaahay baan rumaysnahay malaa'igta baan rumaysnahay qiyaamaha rumaysnahay waan tukada zakaan la baxaa haddii xoolahayga uu gaaro wuu soomaa hadduu awood u leeyana wuu xajiyaa. haddii marka qofka muslimka ama caamatu naas shacab weynahaas awood aan lahayn dowladda aan ahayn ay soomaan oo ay tukadaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u cibaadaystaan oo rasuulka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ateecaan oo sunnadiisa qaataan awoodooda ay sameeyeen runtii wax loo dhigi karo waa gaalo. waxaa weeye fidno ah mujtamacana fasahaadinaysa. aragtida marka xilligii khawaarijta bilaamatay xilligii Abu al-A'la al-Madudi la ta'siiliyay Sayyid Qutbina xilligiisii la dhameystiray kutubana laga qoray fikradaas waa la qaatay waxaa la geeyay caalamka islaamka meelooyin badan oo kamid ah Liibiya ilaa iyo Masar ilaa iyo Soomaaliya maraysa marba mujtamac baa runtii ku dhamaada mujtamacaad badan baa ku baaba'ay dhiig badan baa ku daatay. waxaa marka aan jeclaan lahaa ahkaamta noocaas oo kaleeta ah in laga digtoonaado oo laga fiirsado oo runtii aan lagu degdegin. mujtamacaas wadanka sano baaba'sanaa oo dowlad la'aanta ahaa oo dad badan oo kamid ay qaxeen dad badan oo kamid badaha ay ku laadeen dad badan oo kamid ay saxaraas ku baaba'een in arrimaha noocan runtii aan la gelinin oo dadku ay wacyigooda uu koro oo la aaminsanaado in maaragtay mujtamaca loo naxo lagana shaqeeyo sida meel wanaagsan loo gaarsiin lahaa baan insha Allah ta'ala kusoo ganaanudeena wa ila liqa'in aakhar wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.